kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta daahsoon iyo siyaasadda baraha bulshada. barnaamijkeena waxaa ku lafaguri doonaa boqorka gambiska. dad badan ayaa ku lug ay isweydiiyana dhanka uu raacsan yahay, ma muslim baa mise waa gaal, muxuu la joogaa, muxuu saxayaa. barnaamijkeena intaa u gadagelin maantay waxaa rabaa inaan shudood siiyo taageerayaasha ku xiran janalkeena Kashka Fashion. janalka amaanta shudood ka siinayno waa Said Tasma Official. waa janal aad wax badan ka faa'iidi doontaan kana heli doontaan waxyaalo cusub. waa tahay daawadayaal aan soo gudubno barnaamijkeena maanta waxaan ku lafaguri doonaa boqorka gambiska oo badana la wada yaqaan isagoo oo ku soo aanbaxay su-aashaas waa u gambiya camal dhac u siiya fahanti. marka dad badan ayaa wax isweydiinayaan boqorka gambiska dhankee uu raacsan yahay, yacni ma muslim ba mise waa gaal. marka ay su-aashaas su-aal xun ma ahan, mana xuma in la isweydiiyo, balse waxaa jira siyaabo kale oo wax laisku weydiiyo idinkoo ujeeda qofkii inuu muslim yahay uu mataqaana oo af masaajidka galayo oo luuqadii hooyo kugula hadlayo oo masaajidka uu faloog soo duba isagoo masaajidka u socda. asxaabta arkoosin maanta qorax fiican baa jira yaa marka hadda masaajidka la socdaa boqor gambiska styleka hortoo ka cabsada yaa la markiisa dadaal waxay dhooyaan niyo boqor gambiska adiga maxaa waaye niyo masaajidka le markaa aadis ma xagishine saaxib masaajidka haddana mataqaana in Soomaalideena iyaga kama aha jaahilnimo iyo xaasidnimo midna. Soomaalidu waa dad isjecel, waa dad xumaa iska reeba, waa dad wanaag isku sheega, waa dad Soomaalidu waa dad wanaagsan, waa dad jecel inay kulligood jannada wada galaan, yacni kulligood khayrka isla jecel yihiin. markii ay ku baalkeenaan wax xumaata maaha, balse iyadoo ay saas tahay haddana waxaa fiican in la fiiriyo waqti kasta qofka caqabadaha ku imaan kara marka aad ereyada qaar aad ku tirahdid, taas oo ku kalifaysa inuu wado weyn sii jeexdo wadadaas oo u keenaysa dhibaato kale. marka waxaa laga yaabaa adiga oo mataqaanaa si wanaaga wax uu sheegaya, waxaa laga yaabaa in yacni uu hadaladii uu yacni ay gubaan wasdho yacni arrintan waa beerta wax ka sii weyn sameey iyadoo ay dadkii markaas ka tahay soo baraarujin iyo in qofkii ay tusaan wax wanaaga ah. marka boqorka gambiska horta waa nin dhalinyaro oo wanaagsan oo qalbi furan, badana ma israaciyo ereyada dadka qaar ee aflagaadada ay soo qoraan isagoo kasii wata hawlihiisa, yacni isagoo kasii wata siyaabihiisa iyo waxyaabaha uu danta u soo galay meesha ayaa ka weyn hadalka yarka oo loo soo qoraayo. marka horta Soomaali boqolkiiba boqol waa dad fiican runta marka la isku sheego, waxayna ku fiican yihiin waa dad markasta wanaag isku sheega. qofka mataqaana commentiga marka ku soo qoraya aflagaadada ah maka aha xaasidnimo, balse waxa gubaya waxyaalaha qaar. marka idoo saas tahay haddana waxa fiican sida wanaaga in wax la isku sheego, sida wanaaga in wax la isku faro, sida wanaaga in wax la isku tuso. ma ahan qofka inaad iska karbaashid, ma ahan qofka inaad iska caydid, ma ahan qofka inaad iska nacdid, ma ahan qofka inaad yacni aad dhibsatid oo macnaha dhibaato kugu noqoto inaad yacni ama aad daawatid ama aad degeysatid. iyadoo ay saas tahay waxa fiican Soomaali haddaan nahay inaad si tartiib wax la isku fahansiiyo iyadoo la leeyahay diinu nasiixa, macni dad oo islaam ah nahay Soomaa. marka waxa fiican in sida wanaaga ah wax la isku sheego, sida wanaaga ah wax la isku tuso, sida wanaaga ah yacni tubta toosan, yacni si wanaaga oo degnaan ah wax la isku sheega. yacni marmarka qaar waxaa laga yaabaa in hadallo kulul la soo galno qofka anagoo aflagaadeynayna, anagoo karbaashayna. marka boqorka gambiska aan u soo noqdo, boqorka gambiska horta waa nin dhalinyaro ah oo wanaagsan, sida aan uga jeedna hadeerba qofka wanaagiisa waxaa lagu sheegay inuu dadka iska cafiyo, inuu dadka uu israacan, qofkaas waa qofka wanaagsan. marka Soomaali badanaa waxay aragtay
adiga shaabada oo ninka dhalinyarta ah ku dhagan isagoo shaabad u dhisantay aragteen isagoo shaabad u xirantay arkeen isagoo shaabad muuqaalo kusoo duubaya la arkay isagoo shaabadiisa faaninaya la arkay marka shaabada Soma shaabada horta u soo gudagalna iyadoo ruuxeeda shaabada horta wax fiican maaha laakiin marmarka qaar waxa arkaysaa dad diinta islaamka ay ku weyn tahay oo laacibin adduunka laga yaqaan oo shaabad u dhigsan tahay sida hadda Mas'uud Ozil waa laacib muslim ah waa Turkish dhalasho Jarmal haystaa shaabad u dhigsan tahay shaabad u xiran tahay qofku mashquul ma leh shaabad waxba ma sheegayso shaabad waxa ma sheegayso mana fiicna wax fiican ma ahan ma inagu baraarujina ina shaabad gacmaha ku dhishtaan laakiin wax fiican ma laakiin qofka shaabadu ay u dhagan tahay ma ahan inuu yahay qof gaala mid kale calanka Soomaaliya xataa waxa uu dhagan yahay shafka marka calanka Soomaaliya haduu ku dhajistay ma gaaloobay marka iyadoo shaabadu aysan fiicneen waxa fiican in qofka si tartiib wax lagu sheego shaabadaas wax dhibaato ama keenayso muhiimadu waxa waaye muslim ma yahay qofka ma tukanaya ilaahay ma yaqaana masaajidka ma galaya intaas kaliya adiga maxaa waaye niyo masaajidka le marka aadis ma xagishine saaxib masaajidka guriga ilaahay maano guriga ilaahay aan sharfa maano idinka aan sharfa yaatina idinka min sharfa idinka dhaxdhax waan gimbina laakiin ilaahay muu gimbina yani ilaahay sharaftaas idinka dhaxdhax aan si marka saaxiibayaal sabax guriga ilaahay aan gelinay masaajidka aadina sax salaadan tukanay haddii inta qofka laga helo alxamdulillah barakallah waa loo duceeyaa marka walaalayaal ina hadal inagu soo dheereeyo marabo marka waa kaas boqorka gambiska waa nin dhalinyaro wanaagsan haloo kaco masaajidka ay su'aal xataa ma korsina adiga la ifti waani su'aal xataa kors niga su'aal dhan warsna wigi munaya go waraadar jiis ay kirigan yo boqorka gambiska عدي صدق فهمتي الحمد لله والله شكرا يا والله جمعة مبارك وشاكني جمعة مبارك وشاكني جمعة مبارك أنت مش عايز كاتب كانوا السلام عليكم وقم ما انت لايف حسبنا يوتيوب جبنا مع مساعد كان جبنا جمعة مبارك وشاكني يا دتك جمعة مبارك اي جسكني يلا تعرف مرخص كاكلني يا ترتيبني مركز حقال اي اكنا دكي واكنا عمر سوي فهمتي اوكي قراك سوي بابا فهمتي waa tahay daawadayaal meel kasta dunida ka joogtaan barnaamijkeeni intaas ayuu noogu egyahay waxaan la socodsiin doonaa insha Allah taala inaan daawadayaasheena ama taageerayaasheena xaq nagu leh inaan shidood u sameyn doono insha Allah taala barnaamijyadana sida u shir gareenaysan dhiirigelintan siinaysan waxaan u kalifaysaa inaan muuqaal cusub inii soo sameeyno marka barnaamijyada ina shir gareysan ku dadaala insha Allah taala barnaamijka xiga ayaa inoo balana waa bahda oo isku duuban oo idin leh isma dhaafno waan isla socon doonaa barnaamijyo ka xiiso badan ayaa imaan doona insha Allah taala waxa jeceshiin waan la jecelnahay farxadiina waa farxadeena wanaagiina waa wanaageena marka waxa isku dadaan ina barnaamijyada shir gareysan idinka oo mahadsan maadaama tihiin dad anaga naga mid ah maadaama tihiin qoyskeena maadaama tihiin familkeena maadaama tihiin friendskeena isku day barnaamijyada ina shir gareysan waa awoodaan marka insha Allah taala intaas ayaan uga dardaarmi doonaa waxa inoo balana muuqaalka xiga iyo barnaamij aad iyo aad u xiiso badan bye bye guys